brother Darwish Hood oo asaga yaqaana reer Minnesota ahay waa kala mahad celinayaa walaalkay Maxamed Cabdiqaadir asagana in Norway jaaliyad inuu umarayna madaxdeeda iyo last but not least walaalkay Cabdi Iftiin Somali Cowboy horta waa raadinayay Somali Cowboy muddo badan inaan maaragtay caawadaan waxaan rabaa inaan u fariisto connectionska aqaano dhan all over the state of macnaha Minnesota inta qof aan ka aqaano ama United States inaan raadiyo qof ii soo qabtay Cabdi Iftiin halkay waa mahadsan tahay waxaan ilaahay igala soo kaakulmiya maantay waajibka oo hadda waxa uu istaagay Cabdi Iftiin oo ah arintan xasaasiga ahna ma ahan wax asaga u taala kaliya waa wax Soomaali oo dhan u taala laakiin ilaahay noo fududeeyay inuu qof qaato mas'uuliyadaas oo dusha saarto wuxuuna waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii ummadda Soomaali especially youth-ka isku keena maxaa u rabaa Cabdi Iftiin maanta maxaa u raadinayay maxaa ugu faraxsan I'm so excited wallahi ina maanta la hadlayo I have tremor in my hands so shaking so excited na la kulmo why because mas'uuliyad annagana wada saarneed uu qaatay uu dusha u ritay every single video wiilka soo dhigo repost ku sameeyaa macnaha it makes me happy ano iska drive garayna in the middle of nowhere ano caruurteyda practice ka doonaya soccer ama ka doonaya swimming inaan dhageysto inaan fiiriyo macnaha waxa wadanimada lagu sheegayo qofku ma ahan wax iska yeeli karo Soomaaliya maanta meeshay taagan tahay waxa ka saari kara dad anagoo kala ah dad diaspora ah soo qaxay yaraantoodii Muqdisho ku dhashay iyagoo yarar ka soo tagay chance aan helin haddana alxamdulillah inta yimid nolof ka samaystay adduunyo ka samaystay we have to give back dadkeena meesha jiray marka horta waxa waaye mas'uuliyad anagana wasaan walaalkay Cabdi Iftiin follow gare telefoonkayga meeshan kugu soo qoraya luuqa ani waxaan jeclaan lahaa inaad samaysid tour oo the whole United States aad tagtid gobol walba Minnesota anaa ku jooga town hall meeting anaa ku abaabulaya every single week Minnesota waxaa lagu dhigaa xaflado qabiil ah oo 10 20 30 40 50 kun oo dollar ay ku baxdo oo cuntada la daadiyo oo duruuc la soo gashto oo dahab la isugu faano oo reer hebel loo ururiyo laakiin waxaa la iloobay waxa waaye wixii danta guud ahayd oo Soomaali ka dhaxeeyay taasaa la iloobay marka aniga ma rabo inaan kugu badiyo hadalkayga macnaha dad qof in badan Minnesota deganeed oo laga yaqaano ayaan ahay oo mataqaana ka qayb qaadato wax Soomaalinimo ku saabsan wax qabiil ku saabsan ma gala ani qabiil ilaaha naga wada dhaliyay laakiin waxa intana dhiga qabiilka maanta soo gaarsiin meeshan taaganahay inaan big picture ka arki weyno na gaarsiyo to the point ana waxaan ka shaqeeyaa one of the biggest hospitals in the state of Minnesota Regions Hospital wallahi inaan been idin sheegin oromada ka shaqeyso oo Soomaaliya joogi jirtay oo Qoryoole iyo meelaha joogi jirtay oo af Soomaaliga taqaani waxay marayaan heer afka Soomaaliga iyo fluent u yaqaan ee inkiraan luqadda Soomaaliga waxaana keenaysa anaga isdhigna halkaas luqadda iyo qofka wuxuu qani noqdaa oo fiicnaada oo dadkiisa la jeclaada markay dadkiisa fiican yihiin laakiin every single day dhowr iyo 10 sano ka shaqeynaya orom kasto iga soo warbaxo ilaahay from Muqdisho ma tahay from Hargeysa ma tahay maxaa kaaga jira Soomaaliya ah Soomaali ma jecel inaan ka degto because maxaa uga degana mid kale orday wuxuu leeyahay hebelan ka in gobolkaas aan ka in qabiil inoo kala yaqaanaan degme inoo kala yaqaanaan anaga xitaa dibadda joognayna kala yaqaanaan naga faa'iideystaan waxay ku leeyihiin hadda marka waa mahadsantiin waa soo gaabinayaa brother waa ku faraxsanahay wallahi connectionisaan maanta aan raadinayo aan rabay inaan dhaho wiilkaas hada ii raadiyo because waxa waaye halgankan bilowda adduunka ilaahay wax kasta waxa qof adduunkan leadership u baahanahay wax kasta oo horumar ah dada bilaaba ya 80% adduunka dadka jooga waa followers 10% ya leaders ah marka inaan kugu taageerno oo ku raacno waana lagu aaminsan teeda kale waa ku raacsanaa darwiishood diintaada iyo inaad dhahay ashhadu iyo inaad dadka u proof gareysid iyo adiga iyo ilaahay idinka dhaxaysa qof shaqo ku leh diintaada waa ognahay inaan muslimta meel ku gaalooda maanan aqoon dad kale oo beef kula haysto oo raba inay sumcadaada dhulka la galaan oo ka naxay arintaana qaban qaabinayo oo cadow marka walaal waa mahadsan tahay xil anagana wada mudnayna qaadanay AJ aada mahadsan tahay walaalka inta soo qabatay brother Darwiishood iyo brother Maxamed Cabdiqaadir gidigii waan salaamayaa isoo follow gare balana waay in aday inta awoodeyda inta state of Minnesota inaan kumaan kun ku taageerto habeenkaas la helo oo adduunka kilo badan kaaga qaado waa mahadsan tahay walaalka Minnesota ay ku taageeraan waa taqaanaa umaleynaa waxa waa landeerayaal waay okay Maxamed Cabdiraxmaan walaalkay landeeraha weyn oo waxaan ka hadlaa landeeraha Soomaaliya ka hadlaa
هذا لجنك سلام محمد عبد الرحمن مودا كجرتا محمد عبد الرحمن مودا كجرتا وهذا اوكي سوما هذا الكاغنا سو غابي كسو خمسة هذا ملي مغلا دفعا لغو مغلا ددو دنيال سو غابي دنيال سما عالم مجد ميشان سوالي كابو مركا utimaadid Soomaali waa ku ara calankii waa kana hees kale taa ku jirta heestan oo adiga ku lagu talagalay waxa waaye dadkan Soomaalida ah wajiga laga tusay wajiga leedahay waa kana calankaas buluuga leedahay calankaas naga dambeeyna waa leedahay labada calan baa leedahay natural citizen tahay marka Cabdiraxmaan ku soo maxamed Qaad u soo bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka ugu horeysa AJ family waa ku salaamaya walaalkay sidoo kale Soomaali Cowboy abay hibaad iyo walaalkii Darwiish Hawd dhamaantiin waan salaamayaa salaan kadib horta hees aad u macaan baan noo daartay oo naqiiro gelisay oo dareen maaragtay gaar aan ugu beertay intaanan gelin mataqaana Soomaali Cowboy hawshiisa xasuusay waqti aanu magaca Soomaaliyeed baan wax ku bartay dugsiga sare jaamacadda Kuwait baan ku qaatay marka waxa isoo xasuusay waqti markaan baabuurka istaagnaa ama safka dugsiga sare oo calanka la qaadanayo waxay dhigi jireen waxay qaadi jireen hees la yiraahdo watan al-Kuwait salimta lil majdi marka oo ka dhiganteen oo kale to calankeena marka loo heesiyo kale taa caalanka subano samada oo eco marka maalintii Israa'iil salaan utagnayo saxdi baatay waa ina usal kacna salaada hortagnaa marka ku socdo marka waxaan u bedeli jiray wadani Soomaal salimta lil majdi yani wadankeegi Soomaaliya yani sharaf korkaaga ha ahaato oo bedeli jiray oo macnaha hoos ma u leeyahay qalbigan ka leeyahay mafaanti marka horta sideeda wadaniyada iyo waxa fahmi kara qofka magaca Soomaaliyeed wax ku bartay ama arkay qurba arkay ama waxa micnaha ay leedahay garanaya ama guri ku soo tarbiyoobay markii soo horeeto guri aabiyo hooyo wadaniya ay soo saareen war dadkaas garanaya dadka dambe ama mataqaana qofku markuu magaaladiisa tuuladiisa iyo magaaladiisa hoose uu iska bixinin ma dareemi karo marka horta waxaan u baahanahay dhamaanteen inaan soo wada kaashano calankan waa wada leenahay isaga asal inoo ah ka buluuga ah oo AJ family ka dambeeya inoo wada asal ah kaasaynu kulligeen oo dhan ku midaysanahay kaasaan discrimination iyo kala soocid iyo hebel baa xagga midna ahayn kaasaynu may iyo maxaa tiri inteenu dhan ku wada midaysanahay oo dastuurkeenu yahay horta kaasaa la rabaa inaynu mar walba niyadda ku hayno waxaan kaloo rabaa Soomaali Cowboy laba arrimood kaliya inaan kala hadlo anu aad ma hadal badni laba arrimood kaliya kala hadlaya midda koowaad waxaan la qabaa hibaaq iyo Darwiish Hawd iyo niyow diintu waxa way qalbiga weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay nin ayaa dagaal lagu jiray markii la qabtay ayaa la dilay isagoo la ilaaha illa muhammad rasuulullah markaas waa ninkii dilay buu u yeeray wuxuu yiri say u dishay isagoo la ilaaha illa allah leh wuxuu yiri uu ku gabanayay marka wuxuu yiri maadaama inta qalbigiisa jeexay soo saaray inuu ku gabanayo marka qofka la ilaaha illa muhammad rasuulullah haduu qofka yiraahdo alayhi salaam xageed kelmadda aakhira ka maray wiil marka sideeda la ilaaha illa muhammad rasuulullah meel loo dhaafo malahan waxaan leeyahay qofkii isagu kugu dambaabayana asaga u taala laakiin waxaan ka codsanayaa caawa ka bacdi inaan dadka qancin oo taas mataqaana Allah subhanahu wa ta'ala ay qalbigaaga ay ku xiran tahay midda labaad oo macnaheedu intaan taa dhaafin laba arrimood baa jirta dadka siyaasiyiinta marka la rabo in la wanjalo waxa la yiraahdaa baday iibiyeen oo sidii ra'iisul wasaare Roble sheegi jiray qofka marka la rabo in la shaabadeeyo waxa la dhahaa badu iibiyay qofka hadii la siyaasigaas badu gacanta la galay ama badu saxiixay ama badu ka hadlay waa tagay siyaasigaas mustaqbal ahaan baa loo dilayaa qofka mataqaana kala tana diinta laga saaray waxa la markuu qofku madaxa la soo kaco ayaa waxa la diintu ka baxay marka waxyaalahaas inaad u joojinin oo mar hadaa la ilaaha muhammad rasuulullah tiri ina halka ku ekeysid qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo oo aan Soomaali Cowboy u taabto waxa weeye niyo Ethiopia ba xooga saadha wadankeena Ethiopia kaliya gacanta kuna ma jirto waa run
oo iyadu dana badan bay ka leedahay oo way ka xoog badan tahay kuwa kale laakiin waxa ku jira ilaa 6-7 oo ay dheer tahay banaanka Mareykan iyo Yurub ay dheer tahay ilaa Masar baa kula jirta gacanta waxa kula jirta Turkiga kula jira waxa kula jira Kenya kula jirta waxa kula jirta Uganda iyo Burundi anado soo brother marka yani inaad si aan lagu arag inaad wadan gaar target gareynaysid in ajnabiga oo dhan la wada target gareeyo waxda inagoo dhan inoo wada yaalo way marka ajnabiga oo dhan mid walba dan buu leeyahay midka ugu yar wuxuu rabaa waa dulaal way waa ka ugu yar way marka niyo arintaasna waa inaan iska kaashano diyaar baan u nahay oo maaragtay jaaliyadaha Soomaaliyeed meel kastay joogaanba ee ku gacan qabtaan oo la isku wada gacan qabto in wadaniyada la soo nooleeyo aad ba u mahadsantihiin 100% AJ family Darwish House Somali Cowboy Ibaq iyo Sanka Circus oo reer Germany ah isaga way isnaqaanaa inaad soo dhawo waa maadsantahay dhalinyarada waxay iga codsadeen Somali Cowboy maadaama oo hadalka soo gabagabeeyay number dhow hal u hesha ugu dambeysay lagu daaro kadib adiga aad marka yarkaan siinayad soo galay kadib aad soo gabagabeynay waa soo xiranaa sheekada marka heestaada ugu dambeysay saarina Garato,